inkastoo ay dalalka khaliijku ku adkeysanayaan inaanay u jeedin faragelin militari oo ay dalka Qatar ku dayaan ayaa haddana xiisada maalinta xigtay soo taraysa ee ka dhalatay goyntii xiriirkii diblomaasiyadeed ee dhowr wadan oo Carabi u gooyeen wadanka Qatar iyo cunaqabatayntii ka dambeysay ee la saaray dalka yar oo ay soo raacdo soo gaartaankii ciidamada Turkigu leeyahay oo yimid khaliijka si ay u difaacaan wadanka Qatar iyadoo looga baqayo ciidamada Masar ee ka amar qaata Cabdifataax Siisi ee ku sugan dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa arrimahaasi waxa ay halis gelin karaan amniga gobolkaasi waxaana ay keeni karaan in daqiiqad walba ay colaad ka qarxi karto maadaama colaad aanay ahayn mid la dhalatay Carabta faqiirka sida Soomaalida, Suudaaniyiinta, Yamaniyiinta iyo Falastiiniyiinta arrimaha dartoodna saxaafadda caalamka ayaa had iyo goor diiradda ku haysta arrimaha khilaafka khaliijka waxaana shaqooyinka saxaafadeed ka mid ah waraysigii kanaalka Afcarabeedka ku hadlay Al Hurra uu ka qaaday diblomaasiga hore ee u dhashay dalka Mareykanka Masar James Jeffrey kaasoo lagu weydiiyay waxa uu barnaamijkeenani ku saabsan yahay oo ah maxaa dhacaya haddii Sacuudigu taangiyadooda u dhaqaajiyaan dhanka dalka Qatar diblomaasiga Mareykanka waxa uu arrintaa kaga jawaabay haddii Sacuudigu weeraro Qatar in ay dalal badan oo mandaqada iyo kuwa kaleba soo farigelin karaan colaadda isagoo sheegay in haddii Sacuudigu dhanka Qatar u dhaqaajiyo mid ka mid ah taangiyadooda dagaalka ay xilli kooban gudihii jawaab ka bixinayaan wadamada Turkiga iyo Iiraan suuragalna ay tahay in xitaa dalka Ruushka laftiisu soo galo dagaalka